shirkan nabadaynta beelaha walaalaha ee Khayr Cabdi iyo Maxamed Garaad oo dhawaantan dirir ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool ayaa galay wajigii maxkamadda loogu garqaadi lahaa kaasoo ay garwadeen ka yihiin guddi culimaadudiina waxaana goobjoog ka ah isimada dhaqanka waxgaradka iyo wafdi ka socday xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo uu heliyay wasiir dawladda madaxtooyada Suldaan Mustafa Sheekh Axmed Jaamac Ismaaciil Miro oo gudoomiyaha guddiga nabadaynta ayaa shaaciyay inay bilaabantay wajigii maxkamadda loogu garqaadi lahaa labadaasi beelood maanta oo bisha May ay tahay 28 sanadka 2017 waxaanu bilaabaynaa maxkamaddii lagu kala garqaadiyay labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same halka waxa fadhiya ergooyinkii ay soo xoreen iyagu beel waliba 330 ergey oo uqaal iyo odayaal iyo culmo waliba ay soo xoreen waxay diyaar u yihiin wixii dhacay inay ka taloobaan ay diyaar u yihiin wixii dadka kala galay si hufan oo furxaan la oo walaalnimo leh oo helnimo leh loo dhameeyo culimadu halkan fadhida maxkamadda qaadaysay waxa fadhiya isimadii haddii beed mahayo iyo uqaashi oo xaajada qaybahooda ku leh waxa fadhiya dawladdii oo insha Allah taala hawsha talaabo la socota ilaahay waxaanu ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu hawsha sida ugu qiimaha badan ee ugu wacan ilaahay nagu